horta muddo dheer waa lagu xamanayay wadahadal inay leeyihiin turkiga iyo taalibaan ooy mararka qaar dowladaha reer galbeedka ah ay xumaato uga dhigayeen turkiga inuu ururkan oo la macaamuloonayo laakiin markii ugu horreysay ayaa waxay dhacday haddeer inay si toos u wada hadlaan ay ku wada hadlaan garoonka kabul muddo 3 saac iyo bar ah ayay wada joogeen taalibaan iyo ergo ama dad madaxa oo turkiga ka socda laakiin soo ma jiran inuu markii hore uu ururka taalibaan uu diiday turkigu inuu sii joogo dalka afghanistan markii hore taalibaan way diiday turkiga inuu waddanka sii joogo waayo wuxuu ku yimid neto ayuu ku yimid saas daraadeed inuu turkiga baxa ayaa sharci ahayd turkiga ciidamadiisana badiga hadda way baxeen oo ciidamo badan kama joogaan waayahay heshiiska labada dhinac waa taalibaan iyo turkiga ay gaadheen oo ay ku gaadheen wadahadal 3 saac iyo bar gegada diyaaradaha ee kaabul ay ku yeesheen heshiiska muxuu yahay ama maxay ku heshiiyeen waxaa heshiiska uu yahay inkastuu fadhi kala jiri doono iyo wadahadal dambe in ay turkida qabtaan xagga logistica maamul garoonka kabul waayo khibrad ma ay lahaa taalibaan ay arrimahaas oo kale ku maamulaan awalna maraykanka iyo reer galbeedka ayaa joogay marka in maamulka turkiga lagu wareejiyo maamulo laakiin xagga amniga garoonka inay taalibaan gacanta ku hayaan hadda heshiiska dhinacu u socda inkastoo heshiisteen dhinaca weeye oo taalibaan iyo turkiga heshiiskooda sidaa ayuu noqon doonaa hadda reer galbeedkana way ku farxeen inkastoo berigii hore turkiga ku xeebeynayeen waa tii aynu ogeen taalibaaniintu hadda ka hor ay yidhaahdeen xoogaga shisheeye gaar ahaan kuwa ay ciidamada ka joogaan dalkaasi ha ka baxaan haddii ay ka bixi waayaan dagaal ka dhan ah ayaan markaasi ku qaadaynaa marka ma lagu tilmaami karaa heshiiskan inuu yahay mid muujinayo in taalibaaniyiintu uu aragtidoodii wax iska bedelay ama mowqifka horey taagnaayeen ay wax iska bedeleen dabcan markii aad xukunka qabato waaqaca ayaad la macaamaloonaysaa awal waxay ahayd niman mucaarad oo jabhad oo banaan kasoo dagaalamayo laakiin markii xukunka ay qabteen oo intaasoo milyan oo afqaaniyiin ay ka sugayeen xukun wanaag iyo inay wax kasta u damaano qaadaan amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda maxay ku khasbanaanayd marka inay pragmatic noqdaan ay markaas ay la macaamulanaan waaqaca sida uu yahay haddeer waqtigan isaga sababtoo ah turkiga wuu uga dhow yahay dowladaha kale ee reer galbeedka inkasta uu neto yahay waa turkiga waa dowlad gobol meeshana way ka agdhowdahay in afghanistan inay lugta kala baxdo ma doonayso inkastoo ciidamadeedii baxayaan laakiin maamulka garoonka ayay turkiga hayn doonaan sida muuqato oo taalibaanka hadda ay awood u lahayn ama qudrad ay u lahayn ama aan lagu aamini karin rixlada ama diyaarada ka baxo garoonka kabul oo ay ilaaliyeen ama ay soo baareen taalibaan adduunku inuu kalsoonaani waa laga yaabaa marka heshiiskani turkiga uu ku maamulayo gegada diyaaradaha caalamiga ee kabul faa'iidada uu ka helayo maxay tahay laba shay ayay aada uga faa'iidaysan doonaan kow turkiga oo markaas maamulka qaban doono waa si loogu kalsoonaado garoonka kabul inuu meel kasta tegi karo dadka ka baxa kabul haddii kale kalsoonida ayaa dhammaanayo way soo xirmayaan midda labaadii ka faa'iidaysanaya waxaa waaye taalibaan hadda ma laha awood ama karti ama caqli ay ku maamulaan hay-ad madani oo sida airboortka kale aada u weyn marka ma maamuli karaan awoodna male qudraadna male dadkii ka shaqaynaya garoonkana dhammaan way kala carareen waa dadkan boqolaalka kun oo meelaha ordaayo kala cararay waxaa lagu toonsan yahay inay reer galbeedka iyo maraykanka ila shaqaynayeen marka labadaas arrinba way ka faa'iidaysanayeen khibrada way ka faa'iidaysanayeen ma maarayn karaan laba adduunka inuu kalsooni ku yeesho garoonkana way ka faa'iidayeen waan gartay marka turkigu wuxuu ka mid yahay gaashaanbuurta nato oo ay ciidamadu markaasi muddo dheer ay ka joogeen dalka afghanistan marka heshiiskani xiriirka xulafada iyo turkigu wax saameyna ma ku yeelan karaa may way soo dhaweeyeen badigooda hadda sababtoo ah in si un taalibaan loola macaamulooda hadda ciddiidii malo hadda ciidamada maraykanka oo meesha joogo oo ilaa hadda ay ku hareen 5,000 iyo dhowr kun oo civilian waxa gacanta ku hayo korka waardeynayo waa taalibaan marka taalibaan hadda maraykanka wuu la qaybsadaa qayb ka mid ah sirdoonka iyo waxa dhacayo taalibaan wuu la qaybsadaa taalibaan waa dowladda hadda oo amral waaqac oo hadda jira cid kasta oo ay la mucaamaloonaysaa turkiga marka diblomaasiyadda asalkeeda waxay tahay in la wada hadlo marka wadahadalkaas ayuu ku jiraa turkiga ciidamo kama sii joogi doonaan waxa joogi doono waa shirkadooyin maamuli doona airportka joogi doona sida garoonka xamar oo kale turkiga u maamula ay u maamuli doonaan garoonka kabul